السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجك وحين كسو قادرنا قضب مهمة سعودية أولا يسوق تجي أولادي إيران هديتها حوتي إيوه أولادي كره كسو نيد إيران أو لبضوا شيء إن والرأي مركز سعودية كقاضي سعودية أول لحظة وقالي أولادي إيران إنجليز كأو شيء سعودية إني كالمين دوران حالة سعودية وأدو على قديم مركينين عوال بلغ صور الريمات وركي وجود بيا يعني دين هيا شيء كذا سي وعشان كلا ندين هيا إيران أو شيء تي مريكن كوركي سوين عليه وحبا كتشرين تقال كي وجود بينا أي كد شيء لابد بقول إذا ماذا مريكن كا ترك لنا أي كد عوعين هذا ما شيء كذا ينوى ندين سو جود بين دورا وعشان كلا برنامج كان ندين كوا هيا بين غفير ينكل يرادو دونالد ترامب وأي كده حقرحسن تاي بين غفير وكويدي أو يري ترامب وانين دقنا ويري يا ترامب وسو جوابي هذا بورر كاس أينو برنامج كشو قادنا إن أنت كشرنا وحي سكرنا والروان دي لسوسين دورا برنامج كنا وحي نقبل الله بين حيصد ولا حيصة حوتية إيه سعودية أول شيء إنه كتير هذا يقول وها لقلي كدي مركي أولادي إيران متبمر أورريو أو ما تنكتلق ساري سعودية أو قرتي إن لقى صورري العراق حتى أي صوررين كوحي هالكا كسقنا أو كتل مامي أرجع حسوا العراق جوكت إنه يجونا ورر كسوق قاضين هذا بمركو جوه يسوي إنه كبل الله بينا حوتية أو ور كسو ساري ورر ربان تايكو قاضين جوبها الشدال كي سعودي عربية هذا ورركي وجود بيجي لقى قريش كذا جماعة أنصار الله حوثيين تدل كيمن أيا شيء إني برتل ما ميسدين جوبة حساسية كوها سواه جوبة الشدال كسعودي عربية يجو كويرري ديار الضرون ساه أو هالكاي كويررين جماعة أنصار الله دل كيمن أيا مانتو سنين شيء إني ورر كقاضين جوبة الشدال ك سعودي عربية يجو استعمال يا ديارها الدرونسكا أفايين كميلتريجا كوحدة جماعة أنصار الله حوثيين تدلك يمن جنرال يحيى سريع أيا برتيسا إكس وحا وكو قري ورر كان إني جماعة قاضي أو أي خسارة وجيشتين مريكن كجوبيه سشدال كيدن كبرجا واي نمكاسو ونمكاسو ونمر تعالى سعودي بات درونس إسكندعيسو كتير markii nimankan xuutiga ay soo weerareen oo Sacuudiga dhanka xuutiga gantaalihiisa u jeediyay oo droniskii uu iska difaacayo goobihii difaacayo ayaa Sacuudiga waxay yiraahdeen hadana dhabarkaana la ka saaray yiraahdeen dronis kale oo Ciraaq laga soo ridaa nagta naga saartay iyaguna waa iska dhicin Sacuudiga marka dhaxda la gashaday marna waxa soo weeraray xuutiga dhanka Yemen marna dhanka Ciraaq oo laba jiho kala duwan ah halkan markuu difaac ka galay halkana looga keenay wuu yaabay Ciraaq maxaa ka leey taagay Ciraaq maxaa ka leey ma jirto awlaad Iiraan waa isku awlaadii way isla socdaan hadaba markaanada tusawirkii ugu dambeeyay hadaba waxa la bartilmaameedsaday goobaha shidaalka ee Sacuudigu waxay sheegeen inay ka hortageen diyaarado droonisa oo ka yimid dhanka Ciraaq oo Sacuudiga soo weeraray wasaaradda gaashaandhigga ee Sacuudi Arabia ayaa maanta isniina waxay sheegtay inay ka hortageen cadad tiro ah oo markaa diyaarado droonisa qaarkood ay burburiyeen saacadihii la soo dhaafay waxaana ay sheegeen in diyaaradahaas ay qaarkood ka soo weerareen dhanka Ciraaq diyaaradahaasi waxay bartilmaameedsanayeen goobaha shidaalka ee dhanka bariga iyo magaalada Riyaad ee caasimadda afayeenka ciidamada Saudi Arabia General Rukni Turki al-Maliki ayaa wuxuu sheegay in dhulka Ciraaq ay ka soo weerartameen kooxo uu ku tilmaamay inay yihiin maleeshiyaad argagixiso ah oo taageera Iiraan nimankii Sacuudiga dhaxda la gashay midda qaylaa ka yeeraysa Sacuudiga xuuti dhankaanu nagta ka saaray ma qabarkana waxaa ka soo saaray Ciraaqiyiin waxay yiraahdeen meel nool male meelihii shidaalka magaaladii Riyaad kulli drones ka celinayna only meelaha aan la weerarin waa Jidda iyo Makka iyo Madiina iyo meelahaas ma tagayaan meelahaas xuutiga iyo ma ku shaqo jaamayaan meelahaas
laakiin meesha boqorku joogo iyo wiilkiisa iyo dhulkan riyaad iyo meelaha shidaalka sacuudi dhibaa ka haysta xaalkaasu marka wararkii ugu dambeeyey haddaba ingiriiska ayaa sheegay sacuudiga in ay markaa taageerayaan si ay uga hortagaan weerarada ka dhanka waxayna cambaareeyeen weerarka xuutiyiinta ay ku hayaan sacuudiga haddaba aan tuso wakaalada wararka ee Anadolu waxay leedahay Britaniya waxay cambaaraysay weerarada xuutigu uu ku qaadayo badda cas uu ku hayo waxay sheegeen ingiriisku si toos ah inay taageerayaan amniga iyo qarannimada Saudi Arabia haddaba waxaa la sheegay in ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain uu cambaareeyay ninka la yiraahdo Andy Burnham waxaana uu sheegay in markaa ay cambaareynayaan ingiriisku weerarada xuutiga uu ku hayo sacuudiga iyo dhanka kale weerarada ka dhacaya Bahrul Ahmar ama badda cas waxay sheegeen in arikan uu yimid markii telefoon ay iskula hadleen ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain iyo dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman waaye ingiriis wuxuu leeyahay waa taageerayna sacuudiga si ay nimanka isaga dhaciso nimankii sacuudiga afarta barjiha looga yimid droonisa raaxada la isaga qaadaya halkaan ay ka soo wiifaysaa kaneecadii oo kale halkaan ay ka soo galay ciraaqa laga soo tuuro leeyahay sacuudiga dhanka Yemen ka timid marka mushkilada sacuudiga lagu la galay sacuudiga maalinkii koobaad waxa leeyahay war waxa ka nimanka la isku taataabto nimankan imtixaanka waxa ka cunaysa male maanta dhan hadaa duqayso laakiin iyagu markay ku soo aadaan ama qasriyadii boqortooyada iyo waxay galayaan iyo meelihii shidaal meelay dhagta ka saaraan weynayaan marka xaalka sacuudiga marka halkaas uu maraya leeyahay sheekadu halkaas ay mareen qodobka kale muhiimka ah barnaamijka aynu ku soo qaadanayna wuxuu yahay Iiraan war soo saartay waxay leedahay xogta aan helnay Mareykanka dagaaladii ugu dambeeyay 200 oo askariya ka dilnay waxa uu meelaha wadwada 18 naga dhimatay oo waxa ka jira maleedeen tirada dhaawaca xisaab male ninkan bilaash ma u joojinayeen habeenkii saddexaad oo isku xigta wax weerar ma soo qaadin ninkan waa ku aamusinayeen 200 aan cunay leeyihiin nimanka Iiraaniyiinta ayaga sheegay warkan haddaba aan tuso telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan waxay sheegeen weeraradii ay ku qaadeen saldhigyada Mareykanka inay ku dhinteen 200 oo militariga Mareykanka ka tirsan afayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ayaa wuxuu u waramay telefishinka la yiraahdo Press TV ee Iiraan laga leeyahay wuxuu sheegay in Mareykanka iyagu ay burburiyeen goobo muhiim ah sida cisbitaallo warshado meelaha biyaha laga soo saaro wuxuuna ku tilmaamay arintaasi inay Mareykanka ku tahay dambi dagaal oo uu geystay dhanka kale wuxuu sheegay iyaguna inay kaga jawaabeen saldhigyadiisa inay dukkum daakum ka dhigeen 200 oo askarina ay dileen cadad kale oo aan la garanayna ay sheegeen in ay halka ku dhaawacmeen Mareykanka marka waxay leeyihiin annaga isxaanku ma kala joognay xabadda jooji ma dhihin mana ka barin asaga iska joojiye laakiin waa qararamsanay ku leeyihiin nimankan ilaalada kacaanka warkaas ay keeneen waayahay inta markaa kaga gudubno sheeko kale oo cajiib ah jirta ninkii hadda waxaan arkayay bin Ghafiir iyo waxa isku jawaabaya ninka la yiraahdo muxuu ahaa Trump marka hor bin Ghafiir oo meel shira ka hadlaya ayaa Al Jazeera waxay soo bandhigtay isagoo weerar ku qaabay Trump wuxuu yiri waa saadij af carbeed waxa lagu yiraahdaa qofka doqonka qof doqon amal ah waay arinta Iiraan marka laga hadlayo Iiraan baa la hadlayo luqadeeda in hub lagu garaaco kaliya ninkan marka walba wada hadal la aaday marka wuxuu rabaa in aqli aan kana asagana markiisa intuu soo jawaabay oo wuxuu leeyahay nin wareersan ee golaha wasiirada marka horeba ku soo darsadeen Netanyahu uu labadii sano la soo dhaafay wareerinayo yiri marka labadooda hadda marka warbaahintu midba mar war ka soo tibinaysa arkay marka wax dhafle baa labadaba wareersan waay marka halkaas ay marka hawshoodu baraysa qodobka ugu dambeeya barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa Iiraan ayaa waxay u yeertay safiirka Faransiiska u fadhiya magaalada Tehran iyadoo cabasho ah haddaba marka aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray
إيران waxay u yeertay safiirka Faransiiska waxayna ku eedeysay diblomaasiyiin Faransiisa inay faraha la soo galeen arrimaha gudaha ee wadankaasi Iiraan. haddaba wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa sheegtay in loo yeeray safiirka Faransiiska ee Tehran u fadhiya. afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in ay markaasi u yeertay wasaaraddu safiirka Faransiiska ee Tehran waxaana arrinkan sheegay afayeenka oo lagu magacaabo Ismaaciil Baqaadi. Faransiisku wuxuu farageliyay ayaa la leeyahay arrimaha gudaha isagoo markaasi la sheegay diblomaasiyiintaasi inay khatar sameynayeen. toddobaadkii hore wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa ku eedeeyay ciidamada amniga Iiraan inay ku xadgudbeen xasaanada diblomaasiyiin Faransiisa oo shaqaynayay safaaradda Tehran isagoo sheegay in arrinkaasi uu ahaa mid markaasi xeerka caalamiga ka baxsan. laakiin Iiraan waxay leedahay nimankan waxay ahaayeen niman faraha la galay arrimaha gudaha ee Iiraan. marka waa la isku dhagan yahay. Faransiisku wuxuu leeyahay diblomaasiyiinteedii la qashqashaaday iyo Iiraan wuxuu leeyahay kuwa la qashqashaaday waaba niman arrimaha gudaha faraha la soo galay ee Iiraan. maxaa ka galay arrimaha gudaha? shirar iyo dad inay la kulmaan iyo mashaqadooda maxaa kaga jiraan leeyahay. marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkeygii labaad. like gareeyo oo share gareeyo inta aan mar kale kulmayno nabadgelyo.